waxaan rabaa anigoo ku hadlaya afka jaamacadda inaan ardada iraahdo soo dhawaada jaamacadda markan mulkiilayaal baa ka tihiin idinka leh cidinada kama xigto waa sunno in ardada maartay maalin la isarko la soo dhaweeyo laakiin hadda jaamacadda idinka leh asxaabta in badan oo kamidana hore soo aragnay waa soo wada fariisanay in badanna waa soo aragnay marka soo dhawaada jaamacaddu waa jaamacadiini ku soo dhawaada waxaan idinka mahad celinaynaa inaad doorateen jaamacadda Boosaaso aad nagu aaminteen mustaqbalkiina iyo inaan waxdan baro annaguna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan mustaqbalkaas iyo waxa weeye aaminaadaas aan aaminteen mas'uuliyadda aan qaadnay in ilaahay nagu asturo aanu noqono kuwii ka soo baxa inta tabartayana waxaan ballan qaadaynaa inaanu dadaalka ugu badan ku bixin doono wixii aan idinka ballan qaadnay inaan heshaan insha Allah inta kadib arday waxaad bilowdeen wada cusub ayaa cagta saarteen waa ka soo baxdeen marxaladii secondary-ga iyo waxbarashadii asaasiga ahayd waxbarashadii heerka jaamacadeed step-kii ugu horeeyay ama jaranjartii koowaad baad fuusheen jaamacaddu way ka duwan tahay qaybaha kale waxbarashada aad soo marteen qofku markuu jaamic noqdo waxa la hebel ama heblaayo waa jaamici ama waa jaamiciyad mas'uuliyad ka duwan tii markii hore laga filayay baa laga filayaa ha ka yaabin in aad noqotid qof lala daba joogo la leeyahay biri xageej shalay xageej dhigay maanta halka istaag sidii secondary-ga kale anagu aan sameyn jiray maanta dhirta waraabi ha ka yaabin mas'uuliyad baa fuulasa naftaada oo dhameystiran oo la rabo inaad ka soo baxdid oo aad buuxisid kaliya waxa la isticmaalayaa rules iyo xeerar qofna qabanaya qofna intuu isdhowraa oo ka gudbayo soo soo qaadanaya hadda waxa jirtay ardadu waxay haystaan fursad soo qofka hadii maada ay ku dhacdo inkastoo aan jeclayn aan aad u nabcahay qofka maadooyinka badan ku soo laabtaan fursado kale wuxuu haystaa oo isaga nadiifiyo sababtoo qofku waa xanuunsan karaa wuu maqnaan karaa culays baa ku iman karaa fursadaha la siiyo qofkaas haduu ka faa'iideysan waayo xeer baa qabta la yiraahdo holtin hal sano dib u dhaca waa xeer maalintii hore cid ku cayrsan mayn maxaa u geysay rules baa lagu sheegaya adaa la rabaa inaad dabaqdid mas'uuliyadana aad qaadatid marka waxaan rabaa inaad noqotaan dad naftooda ka mas'uula aan xadin mustaqbalkooda iyo naftooda waxaan ka wadaa naftooda iyo mustaqbalkooda aan xadin dad badan baa jira oo naftooda iyo mustaqbalkooda xaday adiguna mustaqbalkaaga ka fakar waalidkaana ka fakar daruufaha jirana waa ognahay duruufaha siyaasan ku jiidan social media kana adigu kuliyada aad baranaysid baaba u baahan baa adiga technology doortay waqti badan baad ku dhex jiraysaa laakiin uga faa'iideyso dhanka adiga ku caawinaya waa seef laba af leh qofna 3 saac iyo 4 saac TikTok ku jiri kara oo wuxuu daawan karaa wax mala yacni qofna 3 saac 4 saac 5 saac YouTube ku jiri kara isagoo diyaarinaya maada programming ama maada kale IT marka adiga kugu xirantahay marka meesha dadaal baa insha Allah la ka rabaa mustaqbalkana gacantaada ku jira jaamacadda markii la gaaro 25% ayaa macalinku siin karaa waliba maadooyinkan xirfadda ee waqtiga badan u baahan ka badan lagu ma siin karo way maadada arkasaan taala maada arkasa programming heblaayo ayadaa waxa lagu dhigan karaa batch gaar ah lagu sameyn karaa master gaar ah lagu sameyn karaa ilaa PhD kaliya dabada laga wadi karaa taas waa macalinku ku siinayo 25% adiga kugu xirantahay marka sida u doonatid sida waqti u gelisid marka soo korsi socotay waxa ogaanaysaa maadada kuugu haboon ee u jeceshahay manad waakin ba program ba maxaga adiga kugu xirantahay ma software development ba waliba waxaan ugu talagalay sanadka saddexaad ardaydu markay gaadhaan oo qofka uu ogaado meesha uu ku fiican yahay inuu sanad takhassus helo jaamacaddu way ku diyaarisay waxaan kale idinku bishaareynaa inaad haysataan macallimiinta ugu fiican oo aqoon lagu soo xulay xataa magaalada hadda tagtaan organizationska ugu waaweyn jooga oo practical wixii u garanaya ma aanan dooniya IT soo bartay waxaan niriyaa yaqaan yaa soo bartay yaa ku shaqeeya waliba meelaha ugu waaweyn kaga shaqeeya maada kastana waxa la raadiyay macallinkii yaqaanay ayada yaqaanay kuna shaqeynay marka macallimiinta ugu fiican waa haysataan waqtigii dhalinyaranimada ugu fiicnaana waa haysataan waxba dib dhiganina hayso oranina hadhow baad ka bidoontaa gaabka ku galay maya waqti ma heli doonti marba marka dambe socolaysku ka sii banaan doona waa idin ku dheereeyay raali ahaadaan dadaal baa inoo ballan insha Allah